Bismillahirrahmanirrahiim. Ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan shacbiyada reer Somaliland 8 qodob oo ay kaga hortagi karaan cudurka dilaaga ah ee coronavirus. Qodobka koowaad, ku maydh gacmahaaga biyo iyo saabuun si joogto ah. Qodobka labaad, ha taaban sankaaga, afkaaga iyo indhahaaga. Qodobka saddexaad, ku hindhis suxulkaaga ama soofti adigoo ka ilaalinaya calaacashaada. Qodobka afaraad, haddaad qof salaamayso waxaa habboon inaad iska dayso salaanta gacan-qaadka ah, afkuun ka dheh assalaamu calaykum. Qodobka shanaad, guriga joog haddaad qufac iyo xumad yar dareento. Qodobka lixaad, haddii xumadda iyo qufacu kugu sii bataan neeftuna kugu adkaato, dhakhtar la xidhiidh. Qodobka toddobaad, ha tegin meelaha dadku iskugu yimaadaan ee buuqa ah. Qodobka sideedaad, si joogto ah u nadiifi meelaha inta badan la taabto sida albaabada iyo miisaska.